ninkastoo ansaariya hadday inantiisu qaan gaadho intuu nabiga u yimaado oran jiray yaa rasuulullah gabadhaydii way gaadhay daadii gabdhaha lagu bixinaye haddaad adigu doontana waa kuu diyaar haddaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nabigu markaa u weydiistay ku yidhi inantiina ii dhisa markaasuu nicma wa qurratu aynin yaa rasuulallah waa nicmad isheeduna way ku raaxaysaniye waad heshaa markaasuu nabigu ku yidhi anigu maaha waxaan rabee waxaan u rabaa julaybiibna waa ninkan nii soo sheego waa la yaqaana dabiicadiisa markaasuu julaybiib haa u istaagay ninkii inanta hooyadeed baan la soo tashanaya debaliikaadii markaabuu nabigu yidhi haya la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisiibuu u yimiday wuxuu yidhi inanteeni waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tidhi markaasuu rasuulki ilaahay baa soo doonay markaa bay tihi nicama wa qurratu aynin wa qurratu ayn wallaahi waa nicmad waana ku raaxaysanaynaa oo indhahayna ku farxaye waan siinay nebi maxamed markaasuu yidhi nebigu naftiisa uma rabo markaa bay tihi hadda ayuu u rabaa markaasuu yidhi julaybiiba saasay tidhi julaybiib markaasay tidhi may julaybiib ma siinin inantayada hebel baa soo doonay waan u diidnay hebel kalaa soo doonay waan u diidnay julaybiib waa ninkaa taqaanid adiguna ee magaalada madiino dhan lagu hadal hayeen lagu ballamay inaan inanba loo dhisin waar julaybiib u dhisamayna qof kale nebigu ha keeno hadalkaa markay ku tiru ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tidhi hooyo aabba anigay dhegaysta ma nebi maxamed baad amarkiisa celinaysaan bay ku tidhi ma nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam oo aniga i bixiyey oo julaybiib yidhi siiya miyaad amarka nebi maxamed celinaysaan oo diidaysaan wallaahi bay tidhi hee halka uu nebi maxamed raalliga uu igala noqday aniguna raalli baan ka ahee i bixiya bay ku tidhi markaasay ku tidhi islaantii waa run hadalkaasiye oradoo nebiga u sheego ku dheh halkaad raalliga adigu baad kala noqotay inantayadii annaguna raalli baan kala noqonay markaasaa saxaabigii baa nebigu u yimid oo yidhi nebi allow inantii julaybiib waan siinay guurkii uu julaybiib u diyaar garoobayo ayaa waxaa dhacday fasca waxaa la maqlay cadow inuu soo socdo ciidankii baxayay buu markaa julaybiib u raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jebiyey la laayay ay baxsadeen ee meydkii dhaawacii la kala guranayo ayuu nebigu saxaabadii ku yidhi war anigu nin baan tabayaa war nin baan arki lahay markaasaa laga yidhi nebi allow waa ninkee markaasuu yidhi julaybiib awaya markaasaa meydkiisi la doondoonay waxaa la arkay isagoo 7 mushrikiina intuu dhulka dhigay isagiina markii dambe lagu daro meyda oo dul yaalla markaa buu nebigu yidhi wallaahi kaasi julaybiib anuu iga mid yahay aniguna isagaan ka mid ahay 3 jeer ayuu nebigu hadalkaa ku celiyey anigu julaybiib anuu iga mid yahay anna isagaan ka mid ahay waa maxay sidii aan raalliga ka ahaa buu u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqayga weeyaan markaasuu nebigu gabadhii buu xasuustay gabadhii cajiibka ahayd markaasuu ilaahu gabadhaas ilaahu arsaaqada sida roobka ilaahu kaga dhig khayrka ilaahu sida roobka kaga dhig maciishadan ilaahu cidhiidhi weligeed ha ka gelin buu rasuulku yidhi gabadh carmala oo ka baraka badan oo ka xoolo badan bay yidhahdeen asxaabadu nama soo marin gabadha mooyaane laana ducadii nabigeena ku dhacday sal alla alay wasalam marka nebiga calayhi salaatu wasalaam qadarkiisay garanayaan qiimihiisay garanayaan